خير. وعند ذلك جرني موضوع لحريري تاريخ الدعوة في الصومال وعلماء ضرورتي وقت جناءات باللوغيري وموضوع عباهن كلي إنه تمركب والنقطة حتى أن لقى بقول كيرون أنتي محيا لو حلقة هلا يا دعوين لحريرة سياسة دا ميديو بولشديد دون والبا مركا لقى مركا بولشة يوسيد الربا إنه مركا يمكن تو أما ملا فريسيون أنتي لكن هذا هاته مرهدان الهليلي كرين وحي هلكا رنتي أين أرسين كرين أما نوتي نامي كرين وايت المامن مرحلة دي يقول رئيسنا وحنو كهل لأني مركي هذا محاجري علماء طبعا وحي سوق الجيران ضد آخرية ضد واحد كميدا رنتي جوب جوجها أو تاريخ لما هو ذا جوجين لكن يقولون دولة ما دام أي زمن كأود وين رنهانتي وحي نهار سن مركم waddanka waa tuu burbur ku yimid sagaashameeyay ilaa hadda ama 87 ilaa hadda oo wallahi alxamd maantana wallahi alxamd aad moodid xaaladdu inay sii fiicnaatay oo ay marayso heer aan dawlad leenahay wax walba isku aadayn ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo waxaan rabnaa marka culimadii iyo ducaadii jiilka ka dambeeyay oo hadda ay nagala joogaan xagga midig haddaan ka bilaabo fadiila sheekh cabdiraxmaan abyad حاجة هذا كسر بالله باش فضيل الشيخ عبد الحي الشيخ عبد القادر بوبا إيو معالي الدكتور أحمد نور يجونا رنتي وحى أي ناصفين يعني وحي سجاشمات رنتي كدم بيكهل الدونا بإذن الله سبحانه وتعالى وعن شكل كجرين إن لو باهيها أنت علماء أي تلمامين وحي فعل بحينها أي كفعل بحين كران وحي كدري كران جواني فربضان وترحان بحين باهنا وأي جرتا أي تهاي إن مركل تابت بإذن الله سبحانه وتعالى وعن شكل كجرين مركل لسوق وبيو محاد تجناها محاد تبناها محل لو ترون مركل لسوق ورينيو إن وحبضان سحوده يكون جولي ستي ودول بابا إن كسو أبا فربضان عن الآخرين هذين نقول لها جانبك السياسة هذين نقول لها جانبك التجارة وحبضان عن الآخرين لكن كتبتي لقى جارسي صلاة يسون يزكى سيد اللي تهلا قصب بحي حجابه لكن حيوان بضان وحجر إخفاقات كذا له haddaba culimada inoo harsan qolada kana dib ugu soo laaban doono waxay u qaybinayaan waa laba qaybood culimo ka howlgalay wadankii ama Afrika markaan hadda wadanka kala soo qaato kale waxa jooga fadil sheekh Abdul Hayy oo hadda ku sugan Muqdisho halkana waxa jooga sheekh Abdul Qadir booba ayaa halkan jooga dabcan markii wadanka laga hadlayna ragii kalena waa kan culimada kalena ay sheekh Dirri iyo sheekh Bashir iyo doctor Abu Shayba intuba iyagu halkaa way ka yimaadeen العلماء كهول قالي حاجة يوضمضة رجال بيت كأيدتك أيوقحان هذين نقول لهم أمريكا وكيمة فضيل الشيخ الدكتور أحمد نور هذين نقول لهم حاجة إسكندنافيا أو كيمة معركة الشيخ عبد الرحمن أبيض مركا لوضع قيبضان وقيبينية وحن كهر مريدونا بإذن الله سبحانه وتعالى علماء أفريقيا إنتانا نوجد بن تنكلا الدبادة وحن هر مرينا فضيل الشيخ عبد الحي فليتفضل فضيلته مشكورا الشغل الناصفينية تشخيصين الواقع الدعوي ما بعد الانهيار إلا هذا جزاه الله خير نكسر دواد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ورتو حلقة شيكين آيو وتاريخ دير إسلامك Soomaaliya soo gaaritaankiisii ilaa hadda oo uu socdo iyo dowlka Soomaalidu iyo hadba meesha uu maraayay waa ilaahay mahadi marka taariikhdeeni markaan xusayno inaynan daba go'ni ku xusaynin aan ku xusayno ummad Soomaaliyeed oo jawaanibta diinta qoloba meel ay ka qabanaysay inta tabarteeda ay tahay waxa looga goleeyna ay tahay jiilkan dhalinyarada ah inay taariikhdoodaasna ogaadaan mid hadda ay joogaanna islaamka qayb ka noqdaan faafintiisa iyo ku dhaqankiisa jiilka soo socda ee ay dhali doonaanna wixii ay ka soo gaareen dadkii hore looga sheekay ayagana ay sii gaarsiiyaan marka waa mowduuc aad u wanaagsan culimadii hore ilaa hadday soo gaarsiiyeen intii nidaam uu jiray oo sagaashameeyadii iyo ay soo gaarsiiyeen xagaan ka sii wadaynaa marka
waxaan ka sii wadaynaa horta baraarugaas dhalinyarada uu isa soo taraayay oo hadda ayuu soo buuxsamay oo sii socdaa sidii markii hore ahaan jirtay waa la soo sheegay waxaan ku faraxsanahay odayaasha markay soo sheekeeyeen taariikhda hore ayaa la siiyey ani laakiin dhalinyaradan cusub taariikhdooda ayaa la ii soo dhoweeyey halkaas markay gaarto inaan dhalinyarada marka ka mid ahay oo aan mucaanaadkooda iyo hadda meeshuu joogo aan kala sii wado waa arrin muhiim ah 89kii 90kii marxalad aad xamaasadna u jirtay dhalinyarada dugsiyada iyo iskoolada iyo jaamacadahan ay ka socotay ayaa hal qisaan raba marka inaan marxaladaas baraarugu sida uu yani u socday aan wax yar idin la wadaago Sheekh Cabdirashiid markii la xiray 89kii jumcada damawiya oo dhacday 89kii aan markaas waxaan ahaa dugsiga sare fasalka ugu dambeeya ee form 4ka 89 waa dufcadii ugu dambeysay oo dugsiga ka baxda intayna dawladdu dhicin markii oo dhacday jumcadaasi oo culimada la xiray banaanbax laga sameeyay aan markaas waxaan joogaa Baydhabo joogaa dugsiga sare Sheekh Aweys oo masaaridan dhigtaa sabtidii oo jumcaha ku xigtay ayaa qiiro ayadoo nahayso annaga oo culimada la xiray ka xun ayaan banaanbax isugu soo baxnay magaalada Baydhabo meesha la Afridoodka markaas Afridoodkii la isugu yimid banaanbixii la dhigay booliisana loo soo diray waana la kala eriyay galabtii aan isku soo noqonay marka meel shaah lagu cabo oo lagu sheekaysto wiil yar oo dhalinyaro ah oo yar yaa sheekada ku jira si aan yani baraaruga yani sidoo ahaa aad u ogaataan kuba wuxuu yiri warniyo adi maanta doorkii markii la kala eriyay dadka banaanbaxa horta waxa la isku haystay ma taqaan adiga maxaad u banaanbaxaysay waa ku yar marka oo masaajidku mudad ka soo raacay aqligiisan la yaabay wuxuu yiri waxaan maxaad u soo banaanbaxdaa leeyahay هذه دولة كسور جدا معارض بروحان محيين مركز أف ممنتو كذا حوري أنا ولا أقوم ميك أوجر دينتي اللي هو جايان وحوري أنا وحان كوجا ما جرتو لكن دينتو من حوجينا يعني مركز دينتي اللي هو حوجين ما إسكوجين مركز هالكاس مركز يسوم مريسي دين حوجينتي سجاشن كي على جاري بربر كي أدعي مركز بربر مركو جوري وين كوجسو دمو وكلا ولا كلا فرحانين halkaas waxa waajib noqotay in la buuxiyo booskii dawladnimo oo firaaqo ku soo dhacay waxa lagu sii tashaday oo meel u siyaalayna ma jirin kala orodkii la kala orday qof meel uu ka dhacay Soomaali marka Ilaahay baa diintan jeclaysiiyay oo waa fadl Ilaahay qof wal meeshii uu tagay ayuu hor uga sii waday kii malcamad furi iyo kii iskool furi iyo kii ganacsi furiba waxaan u maleynaa hal sano dugsiyeed iskoolaadka markii la fiiriyo ayaa naga baaqday 91 waa kii uu ku dumay sanadkii 91 sano dugsiyeedkaas iskoolaadku way naga xirmeen gudahan ka hadlaaya laakiin sano dugsiyeedkii ku xigay oo 93 madaaristii meelo badan dib ayay uga furmeen halkaas waxaad ka fahmaysaan in yaani booski in la buuxiyo lagu talagalay maanta madaarista markii ka furan Soomaaliya hadaad fiirisid inta sano ee wax lagu soo baranayay alxamdulillah meel fiican la soo gaarsiiyay jaamacadaha ayaa saasoo kala noqday baraarugi ayaa sii batay dadkii barigii hore ay dhici jirtay cadaadis badan iyo waxbarashada xaggeeda iyo xijaabka iyo oo dhibaato ka jirtay si xurriyad ay u faafeen markaas hadda markaad fiir Soomaaliya adoon kala qaadin degmo iyo tuulo meel kasto ay joogan gudahan ka hadlaynaa masaajidda tira badan dugsiyo quraan intiiba way ka socdaan dhinaca markii laga fiiriyo way xanuun badnayd burburkii ugu dhacay laakiin dhinaca markii laga fiiriyana tuulooyin iyo magaalooyin ayna madaaristaasi ka furayn ayaa burburkii kadib laga furay markaas hadda magaalooyin badan ayaa inoo wada dhisan dadka hawsha ka hay markii la fiiriyana Soomaali dadka ay aaminsan tahay wax u dhiibato waa dadka ahlu masaajidka ah culimada ah oo aaminsan yihiin saas daraadeed hadaad fiiriso shirkadaha ganacsiga
noocay dooniba ha ahaadeene waxaa buuxiyey dadkaasi culimada ah marka baraaruga la sheegay macnaheedu ma aha dadka la islaaminayay oo islaan ma jirin macnaheedu ma aha wuxuu yahay dadka iyagoo muslim ah ayay hurdeen hurdadii laga kicinayo waxa la war sidan si la inoogu talagalay ma aha waxana wax iska yimid ma aha waa wax la inoogu talagalay oo isticmaalkii iyo diinta inuu dadka ka fogeeyo dawladda la dhisay oo dawlad aan diinta u roonayn ahiyo waxa dhacay ka kacay Soomaaliyeey aan diinteena dib ugu noqono ilaahay baan ku mahadsan in jeclaysiiyay marka halkaas markay joogto hadda iyo xagee maraysaa hadda waxay maraysaa meel walba oo Soomaali ay joogto sidan oo kale ayaa madaahirta iyo shacairta islaamku ay u joogtaa majaal kasta oo diinta ahna waxba laga yiri meel fiican laga gaarin way jirtaa meel aan meel fiican laga gaarin oo dhibaatooyin ay ka jiraan way jiraan bini aadam dhaqaaqay oo hurdo ka soo kacayna qofka hurdo ka soo kaco haddaan si tartiib gacanta loo qaban mararka qaarkood waxa dhici karta inuu intuu boodo inuu wax dardara dhici karta marka sida loo toosayna way ku xiran tahay laakiin ugu dambays waxaan ku soo gabagabeynayaa horta diintan ilaahay baa iska asagana ilaashanaya diintan ha u cabsanina diintan way guulaysanaysaa laakiin idinkuun isku cabsada diintii ma ku dhaqmaysaan mise kuma dhaqmaysiin halkaa oo laga fiiriyo qof walba marka adiga iska bilow naftaada qoyskaaga dariskaaga ummadaada intee baad diinta garab siinaysaa intee baad diinta ku dhaqmaysaa intee baad baranaysaa adigoon isu cabsi moogiye islaamkii amu baabaa ha ka cabsanin maxaa yeelay ilaahay baa yiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun xifdinta ilaahay oo ilaalinayana asaga yaqaan hadba cid uu ku ilaalinayo Soomaali hadaan nahay waxaan aaminsanahay dadka uu ku ilaalinayo qayb inaan ka nahay haddaynan qaybaha ugu horeeya ahayn marka ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii naga khaldameena inuu noo saamaxo oo noo cafiyo wixii aan asiibnay ama aan waafaqnayna inuu naga aqbalo ummadan muslimka ee Soomaaliyeedna maanta waxay ugu baahi badan tahay waa dhaxdooda inay iyaga heshiiyaan oo isfahmaan maxay waa quwad xoog badan oo haddii isku dhinac u dhaqaaqdo wax badan bedeli karta ilaahay tawfiiqdeena waafajiyo waa mahadsantiin غادر أنا أقول لك أنا هاي بركوا فأنتي دمبان كشكين نهاد تاريخ ذا بربر كمرك لقى هاد ليو وحكوا الرئيسي طبعا سنة ودعوة انتشار كيدو عاد قوي وها كوني سقال بقول يسديتن كي إلى سقاشن كي ومرحلة دي مراحش أي دعوة وجوه بدنيد شرائح ذي قيبها بلشدو دنا يقشي هدوار دي يقول جامعات دي جنا جامعات دي بيقول تكتاي قبل دي secondary iyo primary dhiganaysay ama dugsi dhexe iyo dugsi sare dhiganayay ee shaarka gacmaha gaaban sidatay ee surwaalka dheer sidatay ee maxay ahayd gambada madaxa lagu xidho ee ilyarta ah qaadanaysay bashaar gacmo dheer ah loo xidhay khimaar yar baa madaxa loo saaray marxaladaas uu ka gudbay kadibna xijaab buu u gudbay tobankaasna marka ka horeeyay oo uu ahaa asaas iyo saldhig marka laga hadlayo maraaxil fi taariikh dacwa macnaheedu maaha dadku inaanay islaam ahayn fiqiga la akhriyay kutubta la akhriyay laakiin saxawadu waxay bartay aayaadkan xijaabka ee tafsiirka lagu tilmaamayo quraanka lagu tilmaamayo in la fasiro la yiraahdo gabadhaaday u jeedaa adigaaga sheekha walaasha bay u jeedaa habaryarta bay u jeedaa eedada bay u jeedaa inta la baro gabadhii ay xijaabato meel walba xijaabkeedii ay la marto masalada labaad ee saxaabadu ay soo kordhisay waxay ahayd masjidku inuu yahay markaska iyo meesha dacwadu ay ka fusho in masjidka la nooleeyo oo waliba hadda u baahan in dib loogu noqdo islaamku kulliyadaha uu ka soo baxay waxay ahayd masaajidka
marxaladda kale iyana saaciiday ee bulshada Soomaaliyeed ama dacwada saxwada iyadoo ana ay nasiibka u heshay waxa kamid ahayd taariikhdii dacwatu rusul waxay taarget gareynaysay dadka ducafada ah oo dumarka iyo dhalinyarada ma taarget gareynay ninka siyaasiga ah ama ninka maalka leh ama yani dabaqadaha bulshada qaybaha maanay taarget gareynay waxay marka sabab u noqotay inay iyadana guri walba ay gasho markii la burburay 19 la burburayna dabkii shidnaa ayaa dhimbil waliba waxay gaadhay gobol walba nin walba markuu gobolkiisii u qaxay ama qaaradaha adduunka loo kala qaxay dhimbishii shidnayd baa waxay gaadhay qaaradihii adduunka iyo gobolladii Soomaalidu ay degi jirtay deegaanadii Soomaalidu ay degi jirtay oo dhan ayay gaadhay marka marxaladaas halkaas aan soo gaarsiiyay iyadoo faaftay oo qaaradaha adduunka u faaftay waxa ka hadli doona marka Yurub iyo saameynta ay ku yeelatay ragga kale ka hadli doona waxaan rabaa inaan si gaar ah dadka u baro Sheekh Axmed Maxamed Suleymaan wadaadka garkacas ragga hore ka mid ahaa laakiin uu soo daahayo Sheekh Bashiir iyo Sheekh Maxamed Idriis iyo Sheekh Cabdirashiid iyo lodadkaasu geli lahaa oo dowr weyn buu ku leeyahay dacwadan uu ku leeyahay waa rag loo masaafuriyay ee loo xiray baabuur LG jiri jiray oo ninka la masaafurinayo dusha looga tuuro marka taariikhdaas isagana qayb buu ku leeyahay hore waynaga soo daahay insha Allah ta'ala hadii fursad la helana waa arki doonaa laakiin anigu waxaan taaganahay marxaladii burburkii waxaynu gaarsiinay risaaladii iyo fariintii baa faaftay dhimbishii baa faaftay guri walba way gashay inkastoo mas'alo la isku hayo ay jirto burburkii ma laga faa'iiday xagga diinta mise lagama faa'iidin xogaa muran uu geli karo oo waagaas hore ee dawladdu ay jirtay jaamacadihii baa la galay iskuullada dacwadu gelaysay meel walba systemkii nololeed baa habaysnaa meel walba way gashay laakiin haddana waa faaftay wajazaakum allahu khayran markii ay faaftay oo ay xagga iyo galbeedka isku shareertay dabcan qodobka waxaan niri waxa insha Allah dul istaagi doona labada sheekh fidal sheekh Cabdiraxmaan Abyad iyo Dr. Axmed Nuur Dr. Axmed Nuur dib baan u dhiganaa maxaa yeelay mar haddii uu khabiir wax ka qoray uu yahay waxaan rabaa wixii aan sheegnay dhan in uu qiimeeyo oo miisaanka uu saaro waxna uu ku daro waxna uu ka tuuro waxaan ku hormarayaa fadil sheekh Cabdiraxmaan Abyad oo ka yimid Denmark ah masaajidka tawxiid ee lagu magacaabo ku yaal Denmark amaba Copenhagen ku yaal sheekha hooyadiisa aad u xanuunsanaysa waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryeynaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafiyo aamin dhaha barakallahu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد دارين ما إن شاء الله دكتور خير الله السيو وحاضر كي يقول لي بي يوروب تعددك قاركود آدين يدعوه سامين تايكو يالتي إن يربان كورونا يا لكن وحيوه لسه لكن سيدا هالكم باخير كوغا موغضو أي سومالدو مالي تكتبه saamaynta wanaagsan ay ugu leedahay wax badan oo wanaagsanna waa jiraan dadku se dhul gaal ay ku nool yihiin oo dhul gaalo khatartiisu leeyahay wax la yaraysan karana maaha waxaan se rabaa duruufta dacwadu ama halkan ha noqoto ama meel kale ha noqoto way isku dhowdahay inaan iraahdo laakiin oo doctorka in yaraan ka fawdeeyo sida mawduuciisu u socday dacwo wanaagsan oo khayr badan oo fiday oo meel wanaagsan gaadhay oo midhaheedii aynu wax badan arkayno waxa aniga ii muuqata wax la yiraahdo laakiin waxa anigu ka mid ahay dadka baqdinta qaba sida wardiga ee wanaagsan ee ubaxa quruxda badan aanay wax ugu wada muuqan markaan sidaa leeyahay waxaan uga jeedaa
waxaa laga sheekeeyey xijaabka gabdhaha iyo meesha laga soo qaaday iyo maanta meeshuu marayo waxaase aniga ii muuqda irtidaad cagsihi inuu jiro in xijaabku jiilashan dambe uu khafiifayo oo sida jiilka xijaabka bilaabay ay xijaabka u qaadan jireen iyagoo tiro badan hadda aad moodo jiilka yaryar inaanay sidaa xijaabka ugu aanay ku ahayn arrinkaasina waa arrin waaqic ah oo aan la inkiri karin weeye waxaa la tilmaamay xalaqaadkii muxuu ahay masaajidda ee camirnaan jiray oo dacwadu ay ka fidi jirtay maanta xalaqaadku sidii hore ma yihiin iyana waxaan filayaa jawaabta inuu waaqicu ka tarjamayo dacwadu inanka dacwada ku soo biira ama gabadha jalbaabka qaadataa tadayun iyo diin bay ka ahaan jirtay qofku marka mar haddii shacaa'irtii sunnada iyo xijaabku uu ka muuqdo tilqaa'iyan waxaa loo arki jiray qof yacnii diin ahaan waxan ay ka tahay oo dhaqan ay ka tahay oo akhlaaqdiisa la aamini jiray ammaanadiisa lagu kalsoonaan jiray haddeerse waxaad moodaa macad buu dhigtay diinta wax badan buu ka yaqaanaa hadduu doono uu jeega xiiran yahay waxaa laga yaaba gabadha inay xijaabantaho jilbaabkii sidato laakiin jilbaabkii laga yaabo inuuba dhaqan ka yahay oo markii la doono la dhigayo markii doono la qaadanayo gaabka muxaadaraad baa hadda la jeediyey muctamar baa la jeediyey wax wanaagsan weeye laakiin tolow da'yartan hadda joogta ee qaarkood lagaba yaabo inay stoisimkii iyo ta'amulaadkii falaasifadii hore iyo wax yar intuu ka bowsaday uu rabo qadaa wa qadarka o dhan uu ku bedelo xoogay shubhaada intuu akhristay khitaabka dacwada isaga laftiisu sidee buu muwaa'im ugu yahay jiilkan hadda iyo baahiyahooda oo wax la isweydiin karo runtii oo su-aal laga keeni karo weeye isku soo duuduub dacwadu meel wanaagsan bay gaadhay laakiin tolow armaynu ku jirnaa tadbiiqa xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam shay kastaba inuu leeyahay fatra inuu leeyahay daal inuu leeyahay inuu gaadho maxaa la odhan jiray dhallinyarada xisaabta barataa saabka xisaabtii la odhan jiray equationku markuu extu laba tahay waata marna hoosaada marna kor aado meesha ugu sarraysay miyaynu talo kusii dhowdhownahay oo nooc futuura baa jira miyaa talo mise maya oo wax runtii qofka naaqidkaha isweydiin karo waxaan ku gabagabaynayaa falsafadda dacwadu ma islaaxinta qofka keliya mise waa islaaxinta mujtamaca waxaan uga jeedaa waa lagu guulaystay wax badanoo afraadda in la hagaajiyo oo khayra oo maanta cidna idinma soo khasbin waa wada timaadeen laakiin ka mujtamac ahaan hadday siyaasad tahay hadday dhaqaalo tahay hadday dhaqan bulsho tahay hadday waxaasoo dhan tahay sidee dacwadu ugu guulaysatay inay bulshadii si rasmiya u islaaxiso waa tan weli isdilaysa waa tan weli siyaasigan tuugga ay hadduu doono xukumayo waa tan weli kala qoqoban waa tan weli qabyaaladdu ay maaragtay baabiisay farqiba ii kala leedahay marka islaaxa fardiga iyo islaaxa mujtamaciga ilaa xad intee la eg bay dacwadu ku guulaysatay inay dadka islaaxiso qofkan maanta halkan fadhiya maxaa laga sugayaa inuu tukado sax inuu cibaadaysto sax waa la wacdiyey inuu soo khushuucsan tago sax laakiin bulshadii uu ka midka ahaa muxuu ku celinayaa oo diintu ay amraysaa halkaa waxaad moodaa in naqsi aad iyo aad iyo aad u badani uu ka jiro waxaan markaa anuu ka mid ahay dadka aaminsan wixii inoo hagaagsanay way hagaagsan yihiin laakiin dacwadeenna waxay u baahan tahay naqdi saxbada waxay u baahan tahay in la naqdiyo oo la saxo oo la toosiyo dhaldhalaalooyin badan baa jira la hagaajiyo godadkaa la awdo haddii kale waxaa laga yaabaa markaa dee inay dib u furato oo wixii la hagaajiyay ay dib u xumaadaan waxaase rajaynayaa wax badan inoo hagaagsan yihiin khayr badanna jiro qof inta aan idhi in ka badan oo wanaagsan sheeganayo inuu iga dambayn doono baan rajaynayaa insha allahu tacaala laakiin waxaan rabay inaan ku darsado inaynu in yarna xaqiiqda ku soo dhowaano wax yarna xaqiiqda ku soo dhowaano jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah جزا الله فضيلة الشيخ دمر هدي ميس كلا صاري برارج إسلامك qodobadiisa ka mid ah wuxuu ahaa in la turxaan bixiyo oo maxaa togana ahaa maxaa tabana ahaa maxay tiirisay maxay dhintay waana qodob loo baahan yahay alkhitaab addiini in muraajacad u baahan yahay la iskuma hayo waanu iman doonaa
saddex qodob baa ii harsan qodobna waa qodobka aan hadda u gudbi doono fadiila sheekh doctor axmed nuur oo aan rabo bal waaqic xagga uu joogo iyo intii hadda aanu sheegaynay wixii ku dari lahaa qodobka labaad wuxuu noqon doonaa in la isku xiro waqtigii hore waqtigan hal mar oo ay sheekh cabdirashiid oo haaf ay ka ahayd iyo sheekh axmed maxamed sulaymaan oo asna dhammaystiri doona qodob kale wuxuu noqon doonaa halkaa waxaa fadhiya ducaad iyo culuma fadhida iyo rag mufakiriina mudaahaladooda siin doona biidn illahi subxaana wa tacaala iyaguna darxigooda fadil sheekh doctor tafadal بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدو الدكتور كويري أنا وحنا كجري مايو صحنا مايو دعوة وحا جوغا مسادرتي مركي الرسائش اللي قرأيو علميغا وحنا هو مراجع وحنا هو مسادر أصلا مركي ليدا صحوة الصومالية ضد هلك وحينا لفردي مسادرتي هذه النقنايا oo dadka wax laga qoraa oo afkooda wax laga qaadayo marka iyaga insha Allah ta'ala sixitaanka inoo filan anu waxaan dhihi lahaa laba qodob horta mid waa inaga dadka da'da yar halkan waxa isla fadhiya dad 70 iyo dhowrkii kutubta aqrin jiray Sheekh Mustafa marba wuxuu sheegay inuu 70 iyo dhowrkii tafsiirka soo aqriya oo laba xaashiyood uu soo wata ay dabayl ay ka qaaday 70 iyo dhowrkii bay ahayd iyo dad 70kii dhashay baa isla jooga marka sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadka da'da yar nimcada aan ku jirno oo lagu soo barbaaray waa dadkan waaweyn juhdigii ay sameeyeen xijaabka hadda laga hadlayo gabdhaheenan ay ma sha Allah xijaaban yihiin sida uu ku yimid ragga culimadeenu dacwadu inoo sheegeen culimo laga yaabo qaarkood inay halkan fadhiyaan baa intay guri galeen oo xijaab dharkan la soo gaday baa sidoo noqon lahaa design loo sameeyay oo marba mid la tuurayo oo dhahay sida ma aha iyaga isku habeeyay sidoo ku soo bixi lahaa kadib baa la yiri gabdhihii sida u qaata inagu maanta way noo sahlan yahay laakiin dadkii sameeyay baa jooga alxamdulillah dadka da'da yarna runtii waxay noqonaysaa inaan dacwada madiiniin aan u nahay baan u aaminsanahay waxna aan ka qorno dadka horena waxay nagu leeyihiin inaan u ducayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar walba inaynu u barino meeshaad aragteen in dad ay dilayaan iyagoo salaada ku jira meeshaad aragteen kuwa kale inay caayayaan oo websayada maalin walba lagu soo qori waa dadka thamaraadkoodii dacwada thamarteedii iyo midhaheedii qayb ka midow haddii aan ku soo koobo aniga hadda sidee maraysaa 70kii maxaa ka dambeeyey soomaalida oo dhanba waxaan oran karaa wax yar markii laga reebo in yaroo iska cilmaaniyiin oo meelo ka cabbi markii laga reebo waa dadka Soomaaliyeed ay saxwadu ay saameysay way dal iyo dibadba aniga Mareykankan joogaa taqriiban 17kii sano u dambeeyay dadka Mareykanka jira dad badan oo ka yimidna meeshan way fadhiyaan ee ku bishaaraysta boqolkii waxaan oran karaa 95 ka badan baa nabad galay oo fayow waxa laga yaabaa boqolkii 5 ama ka yar waliba waan badiyaa isleeh 97 Soomaalida dibadda jira waa nabad galeen ilaa hadda alxamdulillah nisba aad u yar baa yaa dhuntay sidaas daraadeed imtidaad weeye dacwada banaanku waa tan gudaha u bayaduna farac ka tahay waxaad u fiirsataan qof kasta oo sida culimadu ka sheekeeyeen ama business haya ama siyaasad haya waa dhaweyd waxaan safka mar fiiriyay nimankii murashaxiintii madaxweynaha ee Muqdisho joogay laynka markay sida u istaagaan hal nin ama laba hadii laga reebo inta kale kulligood waa wadaadda saxwada soo maray madaxda Soomaaliya waa wadaadda saxwada soo maray
oo ku jira marka taasi waa xamdi ilaahay waxaan rabay anigu inaan wax yar runtii aan culimmadan waaweyn ugu bishaareeyo inay idinka hareen dadkii taabiciintaba waxay oran jireen qaarkood maquulo waxaan arkay ay leeyihiin ha ogaadaan asxaabu rasuulillaahi inay ka dambeeyaan dad ku ciriiraya booskoodii bimacnaa dad samaynaya waddadii iyaguna haya in dad badan oo wax ka qoray oo dadka ducaadda wax ka reebay maanta ay jiraan anugu waxaan isku dayey inaan risaalo qoro oon u bixiyey taariikhdii dacwada Soomaaliya laga soo bilaabo 1950kii ilaa 2015 waa 65 sano 13 ilaa 14 sheekh ayaan soo qaaday ma raba inaan wax kala sheego laakiin magacyadooda ayaan rabaa inaan idin aqriyo walacalla ikhtiyaaraadka qof kale inuu kuwa kala qori lahaa laakiin markaan ka saxwa ahaan fiiriyay anigoon fiirinaynin siday kala ahaayeen laakiin mid waliba meel buu taagnaa mid gabay ku soo gala mid quraanka iyo dhinac kale ku soo gala mid tawxiidka iyo dhinac ku soo gala mid qidamka iyo horeynta ba waxaan doortay 17 taqriiban 14 ilaa 13 waxay ahaayeen الشيخ نور الدين علي علو الشيخ عبد الغني الشيخ أحمد آدم الشيخ محمد معلن حسن الشيخ محمد أحمد نور قريره الشيخ عبد القادر نور فارح عبد القادر قعمي الشيخ علي ورسمة حسن الشيخ علي عبد الرحمن الصوفي الشيخ إبراهيم سولي الشيخ شريف عبد النور حسن شريف آدم الشيخ عمر فاروق حاج عبد السلطان الدكتور أحمد حاج عبد الرحمن الشيخ أحمد رشيد الشيخ حنفي الشاعر أبشر نور فارح بعدل اختيارات كميد والبواحد قوني أبا جيرانو دورانيي وحربا كليا مركا إنا تصددك سحوة للشيء محايتهاي وحان هل مثال سوق هذا الشيخ عبد الرحمن شيخ علي الصوفي وإلهي خير السيئة الشيخ عمركو هذا كشيكيي رنتي آديات غيره يقليي لبا موقف أو دعي يعني كتصي الصحوة للشيء وحيته شيخ مالين با نبا دين تعايي مركو نينكين دين تعايب وانتو يري أول سوقاتي ورمحا دين تو عاي محا كاقلي بول وشيبا انتو ربا حيبو لبا كقويي نينكين ديقي با كسو داتي nin askari ah baa loo soo diray ordi baa u yimid markaas wuxuu yiri maxaad ninkan aad ka rabtaa markaas uu diintu caay wuxuu diinta maadiga mas'uulka ah kiina intuu sheeqaatay askariga ah buu laba ka gooyay isagoo dhiigayo kiina cararay ninkii madaxa qaybta shurdada ah baa loo yeeray markaas markuu arkay Sheekh Ali Suufi oo taagan baa intuu kii canaantay iyo isagii canaan kala dul dhaco yiri maxaad sheekha ugu hortimid waxay ahayd mowqifka tusinaya baraaruga iyo qayuurada iyo masayrka diinta loo masayray mowqif kale fanaaniintii Soomaaliya gabadh kamid ah Saynab Ali Baxsan yaa waxay tiri xaflad aroos baa laga ballamiyay marka xafladii anigoo heesaya ilaa sheekha fadhiya Sheekh Ali Suufi waa fadhiya heesti markaan qaaday bay tiri buu sheekhu qayliyay cirku ka qayliyay markaas ay dadkii oo dhan kala carareen anigoo keligay waxay tiri meeshii fadhiyaan see taagan baan sarko waliba dhaqaaqi waxay ahayd baraaruga dadka iyo diinta sida ay dadku ugu yihiin marka ducaadan waxay soo mareen waxa loo xidhayay waxa loo dilayay waxa loo dhibayay waxay ahayd diinta iyo baraarugeed iyo ku soo celinteeda wadadeedii saxda ahayd laakiin maanta inaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ku hamdino ilaahayna aynu barino arwaaxdoodii in ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaan xasan u geliyo wajazaakum allah khayr barakallahu fiikum جزا الله فضيلة الدكتور حنولنا مقع أفكو كضفي وشيخ علي شيخ عبد الرحمن صوفي سؤال ما ينسى
بارك الله فيك isaga soo jeeda marka inta aan mudaakhilada culimada kale u gudbinin qodob isku xir ah oo dacwadii fi الماضي وفي الحاضر oo nagala joogo oo qaybta hore ahayd in la siiyo laakiin shay aan suurtoobin Sheikh Ahmed Mohamed Sulaiman bal sheekha waa dadkii dacwadan u soo maray dhibta waa dadkii la soo musaafiriyay jazaahullahu khayran marka in yar oo kooban hayna yiraahdo bidii Allah subhanahu wa ta'ala عدنان halka u jeesa عدنان waa soo luma marka bal waalidkiisa insha Allah عدنان kamarada ku aadi بارك الله فيك هي حقها سي فرسد بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين المركور إلهي بما هنغينا سبحانه وتعالى إنه نعميي نعمنا وين وهل كان خيرك يبرواغدك صعوته إنه في ذي أنت كسر شقيسي إلهي سبحانه وتعالى كعب المريو أنت دقي سنة سكفى سنة إلهي وكانفعه القضب كان تاريخ مركي لقى هذا يقيمين وحب أنتهي وحلا دياريو إن كتلقل مركي لقى شكين برارج إسلامي جاه سأل الله يدين شقي دتك الصوماليات مسلمة يقول جود هانشرين علمنا واجوكتي دينتنا ولا برنشري لكن واحد بدنا أقواننا واكد النايد هدي على كور دعان كان واحد بدنا باكد النا صوماليدا مهما هيدا وعكبدها إسلام كوالو دشايا لو ما دعمه ما مها سو قارئ كم تهاي سادرادد وعن أنو كم ده ليرد سيدتنات كي براروجا كصوبيري تقريبا أما الله ورك ربع كهر تقريبا مركا وحيابها لياب كله ودي تاريخ ظهر مركا لقى شكين علماء وينك شك سوا في رياه وحي وافق سنتهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ إسلامكو وحو كصوبر ضي وقت النبي وحل إسكوليا أبو آخر سبب كان وحو كصور نقون دونا وحل إسكوليا أبو فطوبى للغرباء تدك وقت الدين تل إسكوليا أبو دين تكود جنان دونا أيا شنا دقري دونا marka waxyaabaha la yaab kale jiilka hadda jooga aysan ogeyn markaan taariikhda ka hadlayno waxa weey in la isweydiiyo dhalinyarada sidee bay diinta ku ahaayeen intee tukan jirtay wiilasha wax yar baa tukan jiray taqriiban ama masaajidada odayaal bay u badnaan jireen gabdhuhu inay tukadaan sideetanaadkii inay diin bartaan iska daa inay xijaab qaataan iska daa inay tukadaan baa lala yaabi jirayoo magaalo aan joogay gabadh baa keligeed tukan jirtay wiilal baa u iman jiray waxay odhan jireen ma habar baa tahay maxaad la forfoorsanaysaa markaasay marba weysada ka jabiyaan xijaabka siduu ahaa waad ogtihiin waxbarashada diintu dhul cilmiga shariicada ku horeeya sida galbeedka iyo magaalada baar dheere iyo dhul fara badan baa Soomaalida sheegaa in ay dhulka Soomaalida cilmiga shariicada ku horeeyeen oo deegaanada kale kaga horeeyeen laakiin dhaqanka marka laga hadlayo dhaqanku aad buu ana ciriir u ahaa quraanka waa ta laga sheekeeyo tajwiidka الشيخ علي صوفي رحمه الله تعالى يسقي عدي وحبري عرورتي سو الشيخ عبد الرشيد نقل جوجو إلهي سبحانه وتعالى سجن عون حريص يجنا حفظيه المجدد القرآن القراءات للقرآن أيال وتي الماما وعوي رنت علمت شرعة وعدكتي واكوبنا كتبكوبا بعلماء أخرسان شرين dhaqanku diintu aad baa dadku uga fogaayeen marka laga duuduubo marka maanta haddaynu ku soo xidhno maxaa isbedelay
konton sano lixdan sano qiimaynta haddii la yidhaahdo la qiimeeyo waxa weeye lagama soo gayoon karo xijaabkii waa la dhaliilayaa hadda waxaa la yidhi waa khafiifay laakiin waagaan garanayno gabdhuhu surwaal iyo shaar bay ku dhigan jireen iskuullada gacmahana waa laga goyn jiray gacmo gaab mooye gacmo dheero looma ogolayn madaxana inay wax saaraan looma ogolayn iskuulladii waddanka Soomaaliya waa gabdhaha wadaadada ay rabaan inay gacmahooda asturaan kuwa kale way iska madax qaawan yihiin waa laga goyn jiray madaxa soo goobaa loo oran jiray gacmaha gabadhii garbarsaar sidata toob gacmo dheero sidata waxay khatar laakiin dadkaasi gabdhaha hadda xijaaban iyo dadkaasi maxay ku kala duwanaayen tan garbasaarta sidata iyo toobka gacmo dheeraha sidataay diin iyo caqiiday u qaadanaysa qaar baa lagu garaaci jiray waalid ka horan jiray maxaad laaga ogantahay ma kanaaca ku haysa markaas qaar sida loo garaaca dhiig afka laga sanka ka keenay mabda iyo caqiido u qaadan jiray laakiin maanta dadka qaadkood waxay u qaadanayaan inay iskaga daydaan mid la dhaliilaya waa taas ku dayasho laakiin aysan inuu xijaabkani caqiido waajib diiniya yahay ilaahay kugu adoonsaday ilaahay loogu dhawaanayo dad badan u qaadan maayaan cilmigii waanta waa faafay dhalinyarada u badan masaajidada inta tukanaysa gabdhaha iska daa qooxan tukanin waa yar yihiin xijaabku shanta qaaradood buu gaadhay oo ummadii kale muslimka ahayd baynu tusaale u noqonnay reermihii anugu waa dhexdaas waxaan artay laba gabdhood oo reermihii oo xijaaban oo salaad isku xidhay gabdhaheena waagii dhulka qaarkood waxa la oran jiray waa gabadh timatidcan gabadhu marka ay ugub tahay oo aan la guursan madaxa masar ma saari jirin waxay garays bay qaadan jirtay feedheeda iyo qarqaradeedu qaawan yihiin markay guri yeelato baa madaxa masar ay saari jirtay ama malqabad saari jirtay waxa weeye maantana gabdhihii reer miyiga ah baa intay tukadaan bay salaad isku xidhanayaan waa waxyaabaha maanta isbedelay bay ka mid tahay cilmigii shareecadii iyo macaahidda iyo jaamacaadka islaamiga iyo haddii la kuuriyay diintii oo ganacsigii gashay shareecadii iyo garsoorkii gashay diintii oo maaragtay meel walba majaalaadkii nolosha gashay baa maanta la marayaa khayrkaas marka gunaanadkiisu marka aan soo ururin waxa weeye dacwadii islaamiga ahayd ama baaqi diinta islaamku meel walba waa ku faafay oo waa xoogaystay muuqaal ahaan iyo tiro ahaan xagga kimiyada ama tirada xagga kayfiyada iyo tayada ayaa maanta loo baahan yahay tayayn baa la rabaa muslim multazima diinta islaamka ama dacwada islaamka adaafteeda waxa ka mid ah in la helo الفرد الصالح قف وناكسن وملتزم ودينته كل رقمه الأسرة الصالحة بولشة وناكسن ودينته كل رقمته المجتمع الصالح دولة الصالحة على عكس كيف من الصالح لا بولشة صالحة على هلا وناكسن ودينته كل رقمته دولة وناكسن عادلة ودينته وحكو حكوتين لهلا وعلقته مركب وعوية تياين تذكر أن يراد وحبرتي دينته برتي إلى حجيان ماركت عبادات كذا علاقات كذا إلهي لليين إلى حماس كي دتك وريد أن يرد هاي دعوة مركا أي بلوغا هاي أيولا هاي دين تفافنتي هاي حماس كلي ما دان إن خلاص كل ود داله المركا وحلو بها ما أنت وحوي مركا صور ووقت جوا كوبنا دعوة دي ويفافتي وعيوبها أنت هنا نسقي بينه حجاب كان للستائين ونقض حجاب إلهي لو جود وهذا عبادة دقن كينو إنه دقن كي دين ونقضه inaan istayayno oo ishabayno oo la hormariyo dacwada iyo ku dhaqankeeda oo dadku waalati leh oo diinta si dhab ah u dhaqmaya kuwaas ilaahay adduunyada ku bedelaya ama dadka ku hagaajinaya laakiin qofku inuu muuqaal kaliya diinta ka yeesho qalbigiisa una wax badan oo iimaan ku jirin ama waxyaabo kale ku jiraan maanta dhalinyarada waxa haysta waxa weeye social media wax la yiraahdo وواجه هريد ضدكم مالك وبام بفسحات كوجا من شرايات سيدا واحد بدل لقاه الله هودا بلقاه هيستابا ضدكيبا مركز ضدكين هودا الله وطا ولا جسوا عليه ودينتي لو حرا وأخلاق دي لهجاتيو وعبادة دي لهجاتيو حريق إلهي لهجاتيو ومدى سفي عن مارك تيايا دي ضدك التيايو علمي جوا فافا لكن علمي اللي جوا تيايو أيها اللي بهي هاي إنتاس أيام كسو قابلنا يا
هذا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا. انت ميكروفون كانوا مداخله وجود بين رنانتي بقها وكدواجيي شيخ عبد الرحمن ابيض وان لو وداغا وميدو هدي الصحوه اي وقتيده اي رنانتي معالجيسي اما اي wax ka badashay xaaladii marka taagnayd hadii ay wax ka badashay waxaad moodaa khitaabka diiniga ah inuu u baahan yahay inuu casrigana ula tatawuro maxaa yeelay maanta shalay haddii laga hadlayay xijaab iyo laga hadlayay bidca iyo laga hadlayay maanta waxayna hortaagan atheismka waxayna hortaagan ideolojiyaadkii herdamay baana hortaagan waxayna hortaagan liberalism baana hortaagan majaalaad fara badan baana hortaagan qadiyadii genderkaana hortaagan howlahaasoo dhan nebi walbana marka ilaahay subxaana wa tacaala uu diro xaaladda taagan uu la falgeli jiray xaaladahanna waxay u baahan xisaabta in lagu darsado tolo marag kale u soo bixi doona mise isla raggii baa dhigi doona shaxda loogaga dabaalan doona dhibta marka taagan mudaakhilada waxaan hormarinaa fadiila sheekh abulfadl oo ka yimid xagga amriika ee ducaadda ka mida fadiilatuhu mashkuuran tafadal طبعا dadka mudaakhilada inaad ii qorantaan u malaynaya waqtiga insha allah waxaan idin siiyay hal daqiiqo maadaama mudaakhilo ay tahay hal daqiiqo ima tacliiq ama su'aal